cadceed group dharka ay dalka keenaan waxa raga dhameystiran quruxna loo daa habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu dooran warka habeen ee raadiyo kulmiye dhimasho iyo dhaawac ka dhashay qarax maanta ka dhacay muqdisho isgaarsiinta taleefanada ee magaalada gaalkacyo oo caawa hawada ka maqan iyo saameyn ay durba ku yeelatay nolosha dadka degan magaaladaasi wax ka bedel lagu sameeyey xubnaha golaha wasiirada maamulka Hirshabeelle madaxweynaha ismaamulka Soomaali galbeed oo caro uga soo baxay shir uu Addis Ababa kula lahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya faahfaahinno laga helayo kufsi gabar yar loogu geystay galgaduud iyo ciidamada oo xiray raggii geystay qorshaha sanadkan lagu wajahayo barakacyaasha ku nool muqdisho oo maanta la daafuray iyo madaxweynaha Suudaan oo la filayo inuu booqasho ku tago Qatar Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo adna qaado Hormuud saaxiibkana u qaad waa habeen talaada ah ay Arbacada soo galayso taariikhdan ku aastaysan tahay 22ka bisha koowaad ee January 2019 warka oo dhan Maxamed Cali Maxamed ayaa la diyaaraa waa mahadsan tahay Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warkaasi oo fidsan dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay qarax miino oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho laba qof oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay inay geeriyoodeen ugu yaraan 4 askari waa ay dhaawacmeen kadib qarax miino oo dhulka lagu aasay kaas oo ka dhacay degmada Holwadaag gaar ahaan isgooska Carwe Iidka wadada 30 ee magaalada Muqdisho warar ay heshay idaacadda kulmiye ee Muqdisho ayaa sheegaya in qaraxu uu ka dhacay goob ciidamo booliis ah ay ku baarayeen gaadiidka oo ku taala isgooska Carwe Iidka goobjoogiyaal la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxay u sheegeen in goobta qarax uu ka dhacay ay ciidamada booliiska Soomaaliya fariismo ku lahaayeen isla markaana markii uu qaraxa dhacay kadib ay ciidamada baaritaano sameeyeen lama sheegin cidda baaritaanadaasi ay ku soo qabteen ciidamada sidoo kalena ma jirto cid sheegatay qaraxaasi isgaarsiinta taleefanada magaalada Gaalkacyo ayaa caawa lagu soo waramayaa inay hawada ka maqan tahay sidoo kale dadka ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa durba waxa ay saameyn ku yeelatay noloshooda arintaasi liman cajiib xaaji ayaa warkan ka soo diray Gaalkacyo abaara 9kii galabnimo ayaa waxaa hawada ka baxday anteenada shirkadda isgaarsiinta Hormuud qaybteeda Gaalkacyo taasoo ilaa iyo caawa ay ka maqan tahay waxaana maqnaanshaha shirkadda ay saameyn ay ku yeelatay ganacsiga ka jiray magaalada iyadoona ganacsiga qaar ilaa iyo hadda ay xiran yihiin inkastoo ay aad ay u yareed wax ku kala gadashada lacagta shilinka Soomaaliga haddana shacabku waxay ku sheegeen lacagahooda ay ku haystaan taleefanadooda balse aysan awoodin inay kala soo baxaan maadaama ay sheegeen inaysan shaqeynayn shirkaddii ay ka isticmaali jireen qaar ka mid ah dadka ay saameynta ay ku yeelatay oo caawa la hadlay raadiyaha kulmiye ayaa ka waramaya dareenkooda bismillaahir raxiim anoo ka mid ah ganacsatada magaalada Gaalkacyo run ahaantii maanta ganacsigeena waxa ku yeeshay saameynta maqnaanshaha Hormuud maartay dhanka EVC-ga maadaama ay ku tiirsan yihiin magaalada Gaalkacyo gobolka Mudugba ay EVC-ga ku tiirsan yihiin runtii waan saameeyeen saacadii dambe ganacsigeena uu xirnaa waana xirnay maadaama aan maartay ay maartay aan dareemayno dadku inay deyn wada qaadanay laakiin sadarteed EVC-gan ku shaqeysanaa ganacsiga waa naga xiran ganacsantaan nahay wax saameyn aad bi saameyn noogu yeelatay ganacsigeena dhan waa xiran yahay aad baan ugu xunaa in alteradu naga tagto bulshada dhan waa ku shaqeysanaa caaw hayeeshee muddooyinkii ugu dambeysay waxaa sii dabargo'aya isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga haddana arrintan waxay qayb ka tahay dhibaatooyinka ay la kulmaan shacabka Soomaaliyeed maadaama aysan jirin lacag cusub oo la soo daabacay marka laga reebo tan hadda sii dabargo'aysa liiban cajiib xaaji raadiyo kulmiye Gaalka waxaa caasimadda Itoobiya ee magaalada Addis Ababa isagoo careysan ka soo laabtay sida lagu soo waramayo madaxweynaha maamulka gobolka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar Cagjar waxa uu Mustafa Cagjar shir saacado qaatay oo aan la isku fahmin la yeeshay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed gudoomiyaha xisbiga talada haya ee dowlad deegaanka Ahmed Chido oo sidoo kale ah wasiirka maaliyadda ee Itoobiya sida ilwareedii ay u sheegeen idaacadda kulmiyo waxa madaxweyne Mustafa Cagjar u yeeray madaxdaas uu Addis Ababa kula shiray kuwaasi oo kala hadlay xaaladda siyaasadeed ee deegaanka oo maalmahan ah mid qasan
waxaa sidoo kale laga hadlay oo la isku fahmi waayey sida la sheegayo wax ka bedel lagu sameynayo hanaanka maamul ee xilligan iyadoo khilaafka iyo waxyaabaha la isku hayo ay qayb ka tahay sii deynta dad la sheegay in ay la shaqayn jireen maamulkii hore ee uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee cabdi maxamuud cumar oo mustafa cagjar xire sida la sheegay madaxweynaha ayaa khilaafka shirkan kadib waxaa lagu soo waramayaa in gelinkii dambe ee maanta uu dib ugu soo laabtay magaalada jigjiga ee gobolka Soomaalida Ethiopia faahfaahin waxaa laga helayaa kufsi gabar yar loogu geystay gobolka Galgaduud waxaana lagu soo waramayaa in ciidamada maamulka Galmudug ay xabsiga dhigeen 4 nin oo lagu eedeeyay in kufsigaasi iyagu ay u geysteen gabadhaasi maxamed cabdiweli tooxow ayaa warkan inooga soo diray Dhuusmareeb sida ay sheegayaan wararka aynu ka helayno degmada Guraceel ee gobolka Galgaduud 4 nin oo kufsi wadareed kula kacay gabar dadka deegaanka kamid ah kuwaasi oo ka helaya meel banaan ah 4 nin ayaa waxay ahaayeen kuwa kamid ah dadka deegaanka waxaana la sheegay in muuqaal ay ka soo duubeen gabadhaasi kadibna ay ku faafiyeen baraha bulshada taasi oo saashay in la soo qabto saraakiisha ciidamada Galmudug ee ku sugan degmada Guraceel ayaa waxay inoo xaqiijiyeen in ay soo qabteen 4 nin isla markaana ay dhawaana maxkamadda horkeeni doonaan qaybo kamid ah gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxa maalmahan dambe ku soo badanayay kiisaska la xiriira kufsiga iyadoo maamulka degmada Guraceel uu sheegay in goob fagaaraha la geyn doono ragani kufsiga geystay si bulshada inteeda kale looga digo waxaana ehelada gabadha ay dalbadeen in cadaaladda la horgeeyo raggaasi geystay kufsiga maxamed cabdiweli tooxow idaacadda kulmiye Dhuusamareeb qorshaha sanadka ee lagu wajahayo barakacyaasha ku nool magaalada Muqdisho shir looga hadlayo ayaa maanta waxaa laga daafuray magaalada Muqdisho farxaan maxamed xuseen oo shirkaasi ka qayb galay ayaa warbixintan ka diyaariyay munaasabad lagu daafurayay siyaasadda barakacyaasha magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee Xamar munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen hay'adaha caalamiga ah mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo madaxda maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii sanadka cusub xal waara loogu heli lahaa barakacyaasha ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka wasiirka wasaaradda gargaarka iyo musiibooyinka ee xukuumadda Soomaaliya Xamza Saciid Xamza oo ka hadlay munaasabada lagu daafurayay siyaasadda barakacyaasha magaalada Muqdisho ayaa wax uu sheegay in barakacyaasha Soomaaliyeed ay gaarayaan tiradooda 2.6 isla markaana loo baahan yahay in wax loo qabto wasiirka waxa kale uu sheegay in magaalada Muqdisho ay ku filnaa karin barakacyaasha tirada badan ee ku sugan duleedkeeda problemka ugu weyn wadankana hadda waxa leeyahay 2 milyan maxal yiraahdaa 2.6 ayaa barakacaya waxaan aaminsanahay inay ka badan yihiin bilkuwaas sababta census ama tirokoob rasmi lama sameyn usbuuc ka hor waxaan tagay maxal yiraahdaa magaalada Baydhabo magaalada waxaa ku nool almost close to 1 maxal yiraahdaa half million people magaaladii weynada caasimadda waxaa la sheegayaa nus milyan waa ka badan yihiin gudoomiye arrintaasna waa noo qusaysaa arrintan barakacyaasha haddii laga hortagin waxyaabo badan khatar u keeni kara magaalada Xamar ma xamili karto in maxalliga agaarkeeda ay ku noolaan IDP siyaasad midaysan haddii la helo waa very success waxaan sugeen marabna magaaladan Xamar inay noqoto caasimada barakacyaasha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo daafuray siyaasadda barakacyaasha magaalada Muqdisho ayaa wax uu sheegay in ay sameeyeen xafiis u adeega barakacyaasha kaasi oo isku xiri doona hay'adaha caalamiga ah iyo hay'adaha dawladda maanta waxaan daafuraynaa siyaasaddii barakacyaasha oo aan in muddo soo wadnay muddo 12 biloodna juhdi gelinay sidii waxaan rabnaa marka siyaasaddii mar haddii la soo bandhigay hadda ayay noo bilaabanaysaa marka shaqadii iyo ujeedooyinkii aan siyaasadda u sameynay inaan fulino kana dhabayno hirgelino si taas loo suubiyo annaga aragtideena waxay tahay muddo 4 sano gudahooda in shakhsi Soomaaliyeed uusan noqon barakac sidoo kale si aragtidaas noogu fusho waxaan diyaarinay waxa loo yaqaan durable solution unit oo u qaabilsanaan doonta xal u helidda dadkaas barakacyaasha waxay unugaas wuxuu ka shaqayn doonaa maxfiiskaas inuu xiriiriyo hay'adaha caalamka hay'adaha dawladda federaalka maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka iyo dadka barakacyaasha wuxuu la imaan doonaa qorshe howleedkii lagu fulin lahaa siyaasaddan laguna hirgelin lahaa daafurka siyaasadda barakacyaasha magaalada Muqdisho ayaa wax uu imaanaya
iyadoo gobollada dalka ay ku sugan yihiin barakacyaal tiro badan kuwaasi oo u baahan in wax loo qabto. wax ka bedel waxaa maanta madaxweynaha maamulka Hirshabelle uu ku sameeyay xubnihiisa golaha wasiirada. warkan waxaa si dhow ula socda haatan stuudiyaha igu heliyay Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim bal Cabdiqani waxaad nooga warantaa madaxweynaha maamulka Hirshabelle isbedelka iyo isku shaqeynta ku sameeyay golaha wasiirada. maxamed cali maxamed aad mahadsan tahay kadib maalmo badan oo la hadalhayay in isku shaandhayn golo wasiiro lagu sameynayo maamulka Hirshabelle madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waarana shalayto ama maalin ka hor uu halkaasi gaaray magaalada Jowhar caasimadda waa maamulka Hirshabelle waxaa maanta uu soo saaray digreeto uu isku shaandhayn golaha wasiirada ee Hirshabelle uu kugu sameeyay isku shaandhayntaasi waxa uu soo saaray ilaa iyo 12 wasiir 9 wasiiru dawle iyo sidoo kale 14 xubnood oo wasiir ku xigeenno ka noqonaya maamulka Hirshabelle digreetadan oo uu saxiixay isla markaana lagu faafiyay warfaafinta ama xafiiska madaxtooyada ee Hirshabelle wasiirada ama golaha wasiirada uu soo saaray madaxweynaha maamulkaasi ayaa dhamaantood maxamedow kuwa u badan xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle marka loo fiiriyo tirada wasiirada tirada ugu badan waxay yihiin xildhibaano marka wasiirada kale aan soo qaado xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cadow waxa la magacaabay wasiirka madaxtooyada Hirshabelle xildhibaan Cabdiqaadir Cismaan Cabdisalaan wasiirka cadaaladda iyo sidoo kale garsoorka xildhibaan Cabdiweli Sheekh Cali wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyo teknolojiyadda xildhibaan Maxamed Sheekh Cali wasiirka shaqada iyo shaqaalaha xildhibaan Cali Xaaji Cabdulle wasiirka beeraha iyo waraabka xildhibaan Cabdiqani Cabdullaahi Hilowle wasiirka dhalinyarada iyo isboortiska xildhibaan Shucayb Cabdikariin Muumin wasiirka biyaha macdanta xildhibaan Iidle sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane Cabdimahad Cabdullaahi Qorgaab oo aan xildhibaanada kamid ahayn ayaa kamid ah ama waa xubinta kaliya ee loo magacaabay wasiir isla markaan aan ahayn xubin ka tirsan sidoo kale baarlamaanka maamulka Hirshabelle marka ilaa iyo 9 wasiir dawle 12 wasiir iyo 14 xubnood oo wasiir ku xigeenna ayaa la soo saaray faahfaahinta iyo dhameystiran wararkeena xiga ay saaxiibada ku mahal doonaan waa maasan tahay Cabdiqani Cabdullaahi Ibraahim habeen wanaagsan dhageystayaal warkii dibadda ayaa inoo harsan duulimaad raaxa leh degdegsiima iyo ammaano ayr Jabuuti u doono madaxweynaha Suudaan Umar Xasan al-Bashir ayaa waxaa lagu wadaa in maalinta Biritaa dalka Qatar uu tago xilli dalkiisa ay ka socdaan dibadbaxyo rabshado toosida ay ku soo warantay wakaaladda wararka ee Qatar al-Bashir ayaa waxaa lagu waday in maanta uu tago Qatar sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee dalkaasi Qatar hase yeeshee warar caawa soo baxa waxa ay sheegayaan in maalinta Biritaa uu tagi doono dalka Qatar isla markaana uu kulan la qaadan doono Sheikh Tamim bin Hamadi Al-Thani ana la filayaa inay ka wada hadlaan sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka labada dal Sheikh Tamim ayaa kamid ah hogaamiyaashii ugu horeeyay ee adduunka oo sheegay inay garab taagan yihiin madaxweyne Umar Xasan al-Bashir kadib markii dalka Suudaan ay hareysay dibadbaxyo rabshado dhaliyay oo looga soo horjeedo sicirka ku imaaday ama sicir barar oo wadankaasi dhanka cuntada ah oo ku yimid warkii oo dhageystayaal idinkaga imaanaya idaacadda kulmiye ee Muqdisho waanaga inta ciddu warka habeenseego waxa ay dib kaga heli karaan page-ka internet-kan ku leenahay ciwaankiisu yahay radio kulmiye.net meel walba ay joogtaan habeen wanaagsan